lagu dukaday salaada Ciidul Adha ayaa markii ugu horeysay salaada Ciida Carafo waxa dadweynihii ka soo qayb galay salaadaasi halkaasi ku dujiyay madaxweynaha xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyadoo mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay salaadaasina ay kamid ahaayeen ra'iisul wasaare Umar Abdirashiid Cali Sharmarke xubno ka tirsan golaha wasiirada xildhibaano culumaawidiin iyo dadweyne aad u fara badan madaxweyne Shariif Sheekh Axmed oo halkaasi khudbad ka jeediyay ayaa ugu horreyn shacabka Soomaaliyeed ugu hambaliyay Ciida Carafo sayasha masjidka Isbaaysiga ayaa ahaa maanta mid si weyn loo adkeeyay amaankiisa iyadoo dariiqyada iyo wadooyinka soo gala masjidkuna ay ahaayeen kuwa lagu arkayay ciidamada midowga Afrika ee loogu yeero AMISOM iyo kuwa dawladda ku meel gaarka oo iyagu gabi ahaan baarayay dadkii halkaasi galaya ayaa halkaasi waxa sidoo kale ahayd mid jawigeedu uu degan yahay laguna arkayay caruur haween iyo dadweyne aad u fara badan oo ay ka muuqatay farxadda salaada Ciid